بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء channel كنا فرحية كشين أصحاب تخالق ما تحن إنه وذا بسكوت حلو 2 كيلو بسكوت وجلعسن laga sheekeyni kara caraftiisa dhadhankiisa soo dhawaada daawasho wanaagsan xalwadii ugu dambeynsan ay ku soo baxday buskutkan waa ujeedaan indhiina idin macalin ah gurigaada ku sameysan kartaa xalwad subag aad u caraf badan aad u macaan badan laga sheekeyni karin dhamaantii waxaan idin leeyahay soo dhawaada ka faa'iideysta oo muuqaalka like noo saara asxaabtiina la wadaaga muuqaalka marka dhameystaan daawasho wanaagsan maanta waxaan sameysanaynaa 2 kiilo xalwad ah ما شاء الله تبارك الله aad ku anfici doontaa soo dhawaada daawasho wanaagsan marka hore waxa u baahan tahay kastar kulli waa taqaaniin Soomahan labaniyad waaye ama kastar qobas uu yaqaano qaabka had u sameeynayo muuqaalka dhameyso hadaadan isma mootinin waa sameysan kartaa waadna fahmi kartaa marka hore waxa u baahan tahay 2 bakeeri oo ah kastar ama warangada waa isticmaali kartaa waa isla meeshii labadood kii ahaystid waa isticmaali kartaa bakeeri koowaad ayaan ku shubay ujeedaan baaquliga bakeeriga labaad ayaan ku soo shubay 2 bakeeri oo waranga ma ahan 2 bakeeri oo kastar waaye kastarka oo laga sameeystay labaniyada kadib waxa u baahan tahay bakeeri biyo ah kadibna waa qasaysaa waa inaad qastid si fiican bakeeri biyaha ma kululo biyo iska caadi waaye kadib waxa u baahan tahay qaadada haafkeeda oo safaraan ah kalarka lagu darsado cuntada kadib waxa u baahan tahay joosh kan Soomaali joosh le waay hal qaada oo buuxda ayaan ku darayaa wixii dhanba inta ay ku qasaysaa marka hore kadib waxa u baahan tahay hal qaada oo heel shiidan kadibna si fiican ay u qasaysaa intaadan dabka saarin waxa la rabaa inaad si fiican u qastid hadii channel kan markii kugu horeysa aad soo booqato waxaan ka codsanaa subscribe inaad taabatid kadibna gambalelka taawo si muuqaal walba u soo dhigo kugu soo dhaco insha Allah hadii aad gambalelka taawatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo dhamaantiin waxaan idin ka codsanaa muuqaalka hadii idin soo gaaro kun like na gaarsiiyo waad mahadsantihiin intaas kadib waxaan ku daray hal maxaan ku iraadaa qaado oo heelisa ujeedaanba heelku waan shaqshaqayaa qashinkan inaa ku dartid looma baahno asoo nadiif ah soo shaqshaqaysaa xaloodan waxaan ku dhahay ma sha Allah tabaaraka waa laga sheekay ma fahanteen ومدري دميسان كده مرة البحر حلود نوعا نو سمي إذن كان سوى تجابي إن شاء الله ذاتك قارو حلود ويقات كاتي ساني قنقطي وحا مقال كده ميسو ووركي كان سفعان ودقيسو كدب واتسمين كرتا ذاتك قارو حدا وينقات كاتي قبلها قاركود بدنان انتي سوها غاجاني واسأب يقو صدران كدب حوبا هانتهي بيو بكيري كوبات بكيري غلبات طبعا كوب وبيو وباهانت مفانت بكيري كان استعمالها انو بكيري شاها بكيري سدحاد ayaan ku shubay bakeerigaas ayaan ku soo cabirayaa waxa u baahan tahay 10 bakeeri oo biyo ah hadii aad sameynaysid 2 kiilo oo xalwad ah hadii aad rabtid 1 kiilo sameysid waa 5 bakeeri oo biyo ah iyo 1 bakeeri oo maxaan ku iraadaa kastar ah laakiin waxa la rabaa hadii aad sameynaysid 2 kiilo ama kiilo qiyaasta inaysan ka wareerin ma fahanteen 10 koob oo biyo ku shubiye markay saa u soo karkaraan waxa u baahan tahay qaadada haafkeeda oo caleen ayaa ku dareysaa caleentii markay saa u karkarto waad miiraysaa ma fahantaa caleenta hadii aad ka badisid xalwad waxay noqonaysaa xalwad madow ay ka noqonaysaa caleenta ka yareey waa u jeedaan intaas kadib waxa u baahan tahay 2 kiilo oo sokor ah kiilaha sokorta waa kiilo xalwad ma fahanteen 2 kiilo oo sokorta waxa waay 2 kiilo oo xalwad ah 2 kiilo sokor markaan ku daro way soo karkaraysaa u jeedidba alaabta isku soo qastay afaarihi isku soo qasta ku dareysaa marka ku sii dareysidna waxa la rabaa inaad sii walaaqdid si fiican oo walaaqaysaa hadaadan walaaqin way ka kala fariisanaysaa digsiga ay ku dhageysaa way ka halaabaysaa hadda waxa la rabaa marka walaaqdid kadib miika dheer u soo qaado si fiican walaaq xalood sideeda waa inaa walaaqdid ku dhawaad waxay saarnanaysaa dabka 1 saac ku dhawaad 1 saac ay diyaar ku noqonaysaa intaas kadib waa u jeedaan saas hadda markay noqoto waa diyaar macnaha way isdhaxgashan ka wada si fiican oo hadda koow ma joogto waxa aan rabaa inaan ku sameeyo subag sixinta lo'da ayaan ku soo darayaa haday markuu soo badbado kugu filan kan waxa waay liter halfkiisa waaye maxaan ku raraa sixinta aan ku daraayo waa liter halfkiisa waa nus liter macnaha waa dareemi kartaan kadib waxaan sameynayaa ku wada daray kadibna si fiican u soo walaaqayaa markay bislaato xalwada ay diyaar noqoto subagan banaanku imaanaya way soo tufaysaa
waxaa la rabaa inaad ka shubtid intaad ka shubi kartid inaad ka shubtid la rabaa. intaas kadib waxaa sameynayaa waa soo walaaqayaa markay subagii iyo maxaan ku iraadaa si fiican isku dhex galaan. daboolka dhab ku siinaysaa 20 daqiiqo lama hadlaayo. 20 daqiiqo markay dabka saaran tahay aan ku soo laaban doonaa insha Allah. saas oo walaaqaysaa saliidan dhan ama subaga inay ku dhamaato la rabaa. 20 daqiiqo kadib waa ku soo laabtay hadda u jeedaan way soo adkaatay. waxaa laga rabaa miika dheer in soo qaato oo aad walaaqdid ilaa 30 daqiiqo kale ayaa sida u walaaqaysaa. saad u walaaqaysid waxay soo tufaysaa saliidi ama subaga aad ku dartay. markay soo tufto waxa sameynaa u jeedaan waan ka dhurayaa bakeer dhina ka shubaysaa. yar yar u soo tufaysaa saliida dhan markay ka soo dhuray oo subag macnaha aan ka shubay. ugu dambeynta buskudkii ayaan sii sameysanaynaa. waxaan soo qaatay bakeeri oo sokorta shiidan ayaan baaquli ku shubay kadib waxaan ku darayaa bakeeriga haafkiisa ama hal qaado weyn saa u jeedaanba oo subag ah ama sixin. kadib waxaan ku darayaa 2 qaado oo caano booro ah. sidaan hadda u qasay hadii aad u qastid buskud cajiib ah helaysaa insha Allah aad u macaan badan. waxaan ku darayaa 2 xabo ukunta ugu yaraan 1 xabo waad ku darsan kartaa. intaas kadib waxaan ku darayaa qaadada haafkeeda oo baking soda ah. baking powder aga bedelkiisa baking soda aga ka fiican buskud markii la dhaho. wax yar aan ku darsaa u jeedaanba kama badinin intaas ku filan. kadib waxaan ku darayaa wax yar oo caano garoor ah. wax yar aan ku daraa sida idin muuqato bakeeriga markii 3 meel loo qaybiyo qayb kamid ayaa ku daraysaa. intaas kadib si fiican ayaa u walaaqayaa. buskudka alaabta la rabo in lagu hagaajiyo waa intaan u baahan tahay 2 koob oo bur ah. bakeeriga isticmaalo waa bakeeriga caadiga oo shaaha aan ku cabno. hadda markuu waa dareemi kartaan aad u jilicsan yahay. saan laga rabo ma fahanteen hore lagama hagaajinayo dabool la saarayaa ugu yaraan 15 daqiiqo ayaan dhigaynaa insha Allah. kadib waa ku soo laaban doonaa. 15 daqiiqo kadib waa ku soo laabtay. waxaan soo qaatay saxankaas oo foornada la gelin lahaa. saxanka saliid ayaan mariyay kadibna waxaan ku dadaadinayaa wax yar oo bur ah. hadii ay haysan warqada la saaro saas aad u sameysan kartaa. intaas kadib waxa u baahan tahay bacdan waa bacdo maxaan ku raadada keega iyo creamkiisa waxyaabaha lagu sharaxo. intaas kadib qaybta labaad waa daboolanaysaa si ay dabeesh u marino kaaga adkaanin. kadib saas u tuujinaysaa ballaar weyn ka dhigi kartaa wax yar oo dhuuban ayaa ka dhigi kartaa. waa tuujinaysaa markaad tuujisid qiyaasta aad rabtid markaa keentid dheer iyo gaagaab. kadib halka ayaa ka jaraysaa. hadaa rabtid aad u dheereen kartaa hadaa doontid gaagaab ka dhigi kartaa laakiin qiyaastaas ay u dhaafaa si idin muuqato. foornadana waad sii shidanaysaa 200 ayaa u geynaysaa dabkana kor iyo hoos. foornada kulul ayaa la gelinayaa. ugu yaraan wuxuu ku jirayaa 20 daqiiqo 15 ilaa 20 daqiiqo ayuu ku jiri doonaa insha Allah. hadda waxaan aadaynaa foornadii noo kululaatay. bismillaahir rahmaanir rahiim. foornadan gelinayaa 20 daqiiqo kadib waa ku soo laabaneynaa. foornada kulul gelinaysaa dabkana 200 aad u geynaysaa kor iyo hoos. waxaan filaynaa fahanteen insha Allah. qaarwa inaan gidiyo waa u jeedaan aan xalwad waxaan jeclahay jiile inay noqoto qabow. markay noqoto ay isku soo laabaneynaa. ugu dambeyntii ma sha Allah tabarakallah waxaan sugaynaa qabow intay ka noqonayso bac qafiif afka saaraysa ama dabool saaranaysa. intaas kadib xalwada waa taasaa gobolkaas ka soo goosanay. xalwada waxaa la rabaa markay qabow noqoto xitaa inay jilicsan tahay inay dhagax ka noqoto lama rabo. xalwad iyo buskud aan inaba caadi ahayn ma sha Allah tabarakallah. ciidana aad ku anfacayso gurigaada ku sameysan kartaa xalwad subag laga sheekeeni karin buskud aan inaba caadi ahayn aad u jilicsan. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen muuqaalka xaqiisaha la siiyo like saara oo share gareeya. waa ku mahadsantiin daawashadiina. dhinaca kale waa saliida FK waa saliid dabiici ah. saliid qumbe iyo qudaar isku hagaajiyo waaye. rosemary ku jiro. alaabtan inaba caadi maan timaha way bixisaa jajabka ka ilaalisaa. timahana way dheeraysaa. caruur iyo cirhoolo qof walbana waa loo marin karaa. qofkii naga gato asaaba customer noo keena ma sha Allah tabarakallah. yaa mar dhawaab idin la soo wadaag mis dhahdeen waa kaasa telefoon number shaashada kaaga muuqdo igala soo xiriir jumlo iyo tafaariiq noo ku bixinaa. meel walba aad joogtidna waa lagu soo dhiibi karaa insha Allah. waa saliid waxtar leh timaha u fiican caafimaadkaaga u fiican. haddii tintaada u laazintidna adaaba soo duceyn doona.